runtii xilliga uu ku soo aaday waa xilli xasaasi ah maxaa yeelay Soomaaliya waxa ay loolan dagaal kula jirtaa dowladda Itoobiya oo dhanka diblomaasiyadda ah baahi badanna kaasi waa u qabtaa maadaama hanjabaadyo fara badan oo dhanka Itoobiya ka imaanaya ay jireen tanna waa Mustafa Diad maqasho mar kale adoo mahadsan bal waxaad sidoo aragtaa in sirta dowladda xilligan aysan marnaba aysan banaanka loo soo bixiyo oo baraha bulshada lagu wadaago xilli arrimaha ciidamada iyo sidoo kale arrimaha diblomaasiyadda la rabay in si hoose kaliya ay noqdaan waxyaabo sir ah waxa inta badan dhacda in la arkayay in baraha bulshada lagu arkay sawirro iyo muuqaalo gaadiidka dagaalka iyo sidoo kale hubkii laga soo dejiyay dekedda Muqdisho oo dadka shacabka ah ay aad u falanqeynayaan arrimahaasi balse kula muuqdaan adii ahaanta cabdicasiis waa mahadsan tahay runtii markii si loo fiiriyo waa wax laga xumaado hubkaasoo kale waxay ahayd xilli habeen ah oo xilli dambe ah in magaalada la mariyo sida fiicneed markii arrimaha amniga la eego iyo waxa ku xeeran Soomaaliya si kalena hadda u fiirisid marna waxay ahayd in la bandhigo in Soomaaliya awood military leedahay waa 30 sano kadib hubkii ugu cuslaaday dowladda Soomaaliyeed ay hesho tan farin waxa la ugu diray dowladda Itoobiya iyo dowlad kasta oo si qaab daran ula dhaqanta dowladnimada Soomaaliya iyo madax banaanida dowladda Soomaaliya marka si kale waxay ahayd bandhig cajiib ah oo dadku jidadka ay ka daawanayeen qadkan go'aya waxay ahayd bandhig cajiib ah oo dadku jidadka ay ka daawanayeen oo ay duubanayeen inkastoo meelaha qaarkood dadka aan loo ogolaynin inay duubtaan marka si haddaad u fiirisid way wanaagsaneed laakiin waxay ahayd markastaba in xogahaas xasaasiga ah si hoose loo qariyo waan gartay markaad fiiriso hubkan dowladda Masar ugu deeqday Soomaaliya muxuu micnaha uu ka keeni karaa maadaama la leeyahay hore waxa jira hub soo gaaray dalka inkastoo Soomaaliya wili cunaqabatayntii oo laga qaaday marka laga hadlayo hubkan Soomaalidu muxuu uga dhigan yahay xilligan maadaama hore u sheegtay in Soomaaliya muddo burburkii dalka kadib hub noocan oo kale ay hesho marka sidee u aragtaa in hadda dowladda Soomaaliya hubkaasi ay la soo degto oo dowladda Masar ay ugu deeqday xilli siyaasadda guud ee dalka wali aan la isku fahmin runtii dowladdu fursad weyn ay u aragtaa inay hub soo hesho maxaa yeelay 30 sano wadankan cunaqabateyn dhaqaale ayaa cimriyay iyo cunaqabateyn hubka ah marka ma jirin dowlad Soomaaliyeed oo awood u lahayd in hub saadeen u badan soo iibsato dowladda Masarna waa ogtahay markii dib loo fiiriyo taariikhda Soomaaliya iyo dowladnimada Soomaaliya waxay ka mid ahayd dowladda markas difaacaya qarannimada Soomaaliya dagaalkii 64 Togwa Jaale iyo dhulkan ka dhacay dowladda ugu horeysay ee Soomaaliya usoo gurmato hub sidana waxay ahayd dowladdii Masaarida marka haddana waxaad u qabtaa iyadoo danaheeda ku soo dhaxmaraysa Soomaaliya danaha Soomaaliyadana la rabo in dowladda Soomaaliyeed ilaalido in Itoobiya lagu cadaadiyo inay ka baxdo heshiiskii la gashay Somaliland waxaasoo dhan waxa sabab waxa way heshiiskii Somaliland ee bilowgii sanadkan Musabbixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Addis Ababa ku dhaxmaray waxa regionka crisis-ka ku abuurayo waxa way arintaas Masarna dhanka Itoobiya waxay isku haystaan biyaha wabiga Niilka marka waadana laba dowlad ay leeyihiin oo la rabo in uu ilaaliyo Soomaaliya waan gartay dhinaca kale waxaa jira in muwaadiniinta Masaarida ku nool magaalada Hargeysa ee deegaanada maamulka Somaliland in maamulkaasi uu ugu baaqay inay ka baxaan marka arrimahaasi saameyn intee leeg ay ku yeelan kartaa culays ah dhanka Masar runtii waa sax xaruntii dhaqanka ee Masaarida ay ku lahaayeen magaalada Hargeysa waa la xiray sababtoo ah waxay ku andacoonayeen inay Soomaaliya Masaarida la safteen marka saameyn waa ku yeelanaya laakiin saameyn ballaaran ismalihi waa ku yeelanaysa maxaa yeelay Masaaridu taariikhiyan markastaba Soomaaliya way garab istaagi jireen xilliyadii hore oo gumaysi ka hor xataa yacni waxay ka mid ahaayeen dowladihii badda cas ku loolamay markii qarannimada la helana dagaalkii 77 waxay ahaayeen dowladihii markii ugu soo jabay dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya dowladii Masar taageeray inaan Soomaaliya si yacni ciidamadii xulafada inay gudaha u soo gelin si looga ilaaliyo madax banaanida iyo qarannimada Soomaaliya marka waxaan isleeyahay fursaday u tahay xilligan dowladda Soomaaliya ay ku soo bandhigi karto awoodeeda ayna ku muujinayso
inaysan Ethiopia ka baxsan tahay curfiga diblomaasiga ayna u baahan tahay in Ethiopia indhaha runta loo saaro oo aan ahayn in maalin kasta qaab diblomaasiyada loola dhaqmo wadiiqada diblomaasiyadda waxaa la yiraahdaa marka diblomaasiyaddu dhamaato bilowga waa bilowga dagaalka markuu wada hadalku dhamaado waa bilowga dagaalka Ethiopia inta wada hadalka ay diidayso oo ay ka meermeerinayso waa mar kasta oo colaad uu ka abuurmayo gobolkan aan xasiloonayn geeska Afrika waan gartay dhinaca kale markaad fiiriso in Ethiopia mas'uuliyiinteeda markay hadlaan waxay sheegaan in dowladda federaalka Soomaaliya kaliya ay ka taliso Muqdisho awoodeysan u lahayn marka taageerada hadda in Soomaaliya ay heshay maxay ka bedeli kartaa in cagajugleyntii markii hore ee Ethiopia ku waday shacabka iyo dowladda federaalka Soomaaliya wax badan ay ka bedeli kartaa maxaa yeelay Ethiopia waa sax si hadda u fiirsi dowladda Soomaaliya gobolada awood badan oo ciidamo xoog leh ka joogan ma jirto dowlad goboleed kastana dinihiisa gaarka ah ay u qabto inuu fiirsanayo laakiin markii masraxa diblomaasiyadda caalamiga la eego meel kasta oo dhulka jamhuuriyadda Soomaaliya waxa ka talinaya jamhuuriyadda federaalka calankeeda Ethiopia xaq uma lahan mar kastaba inay gobol gooni inta jarato ay dhahdo anaa hoos imaanaya runtii waxyaabo aad looga xumaado waxa ka mid ah nin isku sheegay inuu leeyahay la taliyaha ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo sheegay inay dowlad goboleedyada qaarkood doonayaan in Ethiopia ku biiraan runtii waa fadeexad waana disaster oo looga baahan yahay in bulshada iyo laga wacyigeliyo marka tani dowladda Soomaaliya fursad ay u tahay inay hub soo iibsato oo awoodooda muujiso oo xuduudaheeda sugato oo ay iska ilaaliso cadow kasta oo taaka dhul Soomaaliya qaadan kara qaab aan sharciga ku waafaqsanayn waan gartay dhinaca kale ugu dambeyntii markaan fiirino in waxaa jiray in uu baaqday in wada hadaladii la filayay in 27 bishan in mar saddexaad uga furma magaalada Ankara Soomaaliya iyo Ethiopia marka maxaa isdhihi karta wada hadaladaasi way hakiyeen midda kale sidee u aragtaa in mowqifka dowladda ee wada hadaladaasi ay ka istaagtay ee Ankara ee labada jeer ku dhex maray wafuud ka kala socotay labada dal runtii inkastoo dowladda Soomaaliya ay adkeed in Ethiopia la hadasho maxaa yeelay Ethiopia dhulaysan lahayn ayay ku doodaysaa marka maadaama hadda wada hadalladii ay burbureen waxa kaliya ee dowladda Soomaaliya u furan waa inay tallaabooyin adag ay qarannimadeeda ku difaacayso ay qaado maxaa yeelay shirarkii kala duwanaa ee Ankara labadii shir dhacay wax natiijo ah kama soo bixin Ethiopia wax u qabtaa shaqo caruureed inay la ciyaarayso dowladda Soomaaliya ma rabto in heshiiskii Soomaaliland ay la gashay ka baxdo mana rabto in dowladda Soomaaliya isku dhacaan marka qaab kale oo shimbiriyo hees wanaagsan heesa ayay rabtaa marka waxaasna ma shaqeynaya markii laga hadlayo curfiga diblomaasiga ahi wadan kale dhul sheega kara ma jiro laakiin xaq waxay Ethiopia u leedahay qaab nabadgelyo ah in xeebaha Soomaaliya ku maalgashato sida xiriirada caalamiga dowladuhu badaha kale ku gaaraan laakiin ma ahan inta ka dhulka Soomaaliyeed maamul aan la aqoonsaneyn inay heshiis la gasho marka dowladda Soomaaliya fursad ugu banaan waxa waaye inay awood iyo waxa ay heli karto ay ku difaacdo dhulkeeda war kale oo maanta ummadda Soomaaliyeed mari karan jiro waa taada baasan tahay ugu dambeyntii hal su'aal ugu dambaysan jaan ku weydiiyo taasi oo ah in haddii uu dhaco dagaal u dhaxeeya Masar iyo Ethiopia dhibaato intee la eegay soo gar shacabka Soomaaliyeed soo ma wanaagsana in arrimaha wada hadal lagu bedelo mase dagaalka ayaa xal kula muuqda ahaan dabka falanqayso ifaalaha hadda muuqda markaad fiirisana ma la dhihi karaa in Ethiopia iyo Masar waxay ku dagaalami doonaan in gudaha dalka Soomaaliya runtii san aaminsanahay dagaalku toos ma dhex mari doono Masaarida iyo Ethiopianka maxaa yeelay sida qorshuhu yahay intaan ka warqabo Masaaridu ma dhaafi doonaan gobol Banaadir iyo meelo kooban ay tigi doonaan xuduudaha laga geey doono iyadoo la ilaalinayo sidaa in regionkan ka dhaco laakiin mar kastaba haddii loo baahdo Masaarida heshiiskii lagu kala saxiixday waxay ahayd haddii taaka dhul Soomaaliyeed xoog lagu soo qaato in ay kuna difaaci doonaan marka waa wax dagaalna waa dhici karaa laakiin asbaabaha ugu badan oo ku dhici kara aad u adag tahay laakiin waxa waaye in diblomaasiyad iyo awood military labada dal ay muujiyaan oo xaniyaha iska taabtaan waa taada ma santahay in kaasina wuxuu ahaa Mustafa Warsame Sabriye oo ah in falanqeeyo arrimaha xiriirka caalamiga sidoo kalena in bartay cilmiga in
international relationship-ka sidoo kalena falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya waxa uu la falanqeynayay hubka iyo gaadiidka dagaal ee Soomaaliya ka heshay dowladda Masar waan kaaga mahadcelinayaa Mustafa